الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة ولا ليال وحين كهذلنا قضب كي صدحي تبنات قضبضا لغو قوليستو أما مبادئ ذا لغو قوليستو كاسو قول دريسي قوليسي بينو كهذلنا هذانا قول دريسي بينو شيغينا قول دريسي في عربي واحد لغو يرادا فشل انجليز كان واحد لغو يرادا failure. موضوع عنو مركا وموضوع عاد مهم ولا الربا إني سيفي عن كاقد أدعو فكرة حن بادتك وحي كهيستان قول دريسي ومعناها محكوسة دقدقة يوحو ياهي وح عربتي إنا تقارتد وتقاري كري ويدد أيا ليرادا وكو قول دريسي هبل هسيشي لبا نوع ayuu leeyahay guul daraysigu jab oo ku meel gaara oo aan ugu damayn ahayn iyo guul daraysi dhab ah oo ku dhamaanayso shaqadaadii maxay kala yihiin waxay kala yihiin haddii aad ku guul daraysatid wax aad samaynaysid oo markaas aadan ku niya jabin oo aadan joojin shaqadii waxa weeye waa jab ku meel gaara faa'iidona wuu leeyahay kale oo ah inaad wax ka baranaysid hase yeeshee markaad niya jabtid oo shaqadii aad rabtay joojisid oo aad ka hartid wixii aad samaynaysid markaasaad si dhaba u guul daraysatay jabka ku meel gaarka ah wuxuu qofka wax ugu sheegaa si uusan qofku ama af uusan qofku fahmi karin ayuu kugula hadlayaa laakiinse afkaas haddaad fahamtid oo aad garatid waxa uu kugula hadlayo oon codka lahayn taas waxay dhacaysaa inaad ka faa'iidaysatid oo aad wixii aad haysay bedeshid laakiinse haddaad fahmi weydo afka uu kugula hadlayo waxaad ku celcelinaysaa khaladaadkii aad hore u gelaysay waxaadna noqonaysaa mid aan ka faa'iidaysan jabkii ku meel gaarka ahaa ee ku soo gaaray. Napoleon Hill wuxuu ka sheekeynayaa 7 marxalo oo noloshiisa uu soo maray oo kulligood wada ahaa jab laakiin waqti dambe uu ogaaday jabkaasi inuu ahaa mid ku meel gaara noloshiisina wax iska bedeleen wuuna ka faa'iidaystay laakiin wuxuu garowsaday arrintaas waqti dambe. adiga nafsadaadu walaal waxaa laga yaabaa inaad garanaysid ama inaad marmar jab soo martay oo wax kaaga kordheen ama dad jabay aad garanaysidoo jabkoodii aad wax ka faa'iidaysatay. uma baahna inay Napoleon Hill iyo suu u jabay iyo ku celcelino maxaa yeelay waa nolol nin soo maray dad far badan waxay la yeelan karaan nololo kale ay soo mareen. waxaa la yiraahdaa haddii aad arrin aad rabtid ku jabtid ama shaqo lagaa eriyo ama wax aad samaynaysa aad gaari weydo waxaa lagu leeyahay marmarka qaarkood waa in lagu leeyahay oo kale war shaqadaanu shaqadaadii maahee shaqo kale raadso ama waxaan saa u wadid si saxa maahee sidaan wax ka bedel. u fiirso walaal dadka taariikhda galay oo la yaqaano kulligood markay wax bilaabeen iskama ayan najixinoo ma ayan guulaysanin laakiin in badanoo iyaga ka mida noloshoodii hore waxay ahayd mid guul daraysatay. waxaan soo qaadanaynaa Thomas Edison ninka la yiraahdo oo nalka sameeyey caan wax ku akhrinayno ninkaasoo 216 mar baynu soo sheegnay inuu isku dayay inuu nal daaro oo intiiba ku guul daraystay laakiin guul daraysi ku meel gaara buu ahaa. markii 217 ay ahayd ayuu nalkii u daarmay marka hadduu 20 ama 30 ama 40 iskaga hari lahaa ma nal baad haysan lahayn uma badna inay caawa nal haysan lahayn. waxaa kaloo ka mid ah nin la yihahdo Jack Mack ma soo qaadanaynaa ninka isaga ah wuxuu ahaa nin Shiinees ah
ninkaa shiineeska noloshiisii hore o dhan waxay ahayd jab, laakiin jabku meel gaar ay ahayd. wuxuu shaqo u doontay fried chicken, Kentucky fried chicken, macnaha kuwan digaaga sameeya, isaga oo group ku jira 24 qofa, 23 baa la qaatay, isagii baa laga tegey. ma jab ka weyn baa jira. wuxuu haddana shaqo u raadsaday booliska, 14 qof bay ahaayeen, 12 baa la qaatay, isagii mid kale laga tegey. 10 mar ayuu jaamacadda Harvard oo Maraykan ku taal uu u qortay in la qaato, intiina waa la soo diiday. halkaa waxaa ka garanaysaa maantana ninka isaga waa ragga bilyoneerada adduunka ugu waaweyn buu ku jiraa. wuxuuna leeyahay shirkad la yihahdo Alibaba oo alaabta rarta, oo internetkay ku rarta alaabta, waana naajix. intaasoo dowladood buuna wuxuu ku leeyahay muxuu ahaa meelo uga shaqeeya. waxaan kaloo soo qaadanaynaa dadkii iyo intay yaraayeen loo tiirinayo jabka, Albert Einstein ninka la yihahdo, ninkaasoo caalim ahaa, Nobel Peace Prize ka qaatay, Nobel Physics qaatay, Nobel Prize ka qaatay, Physics ku qaatay, muxuu ahaa quantum theory, nadariyo la yihahdo quantum theory leh. waa nin aad iyo aad adduunka u yaqaanin. ninka isaga ah ilaa 4 sano uu ka gaaray ma uusan hadlin. 4 sano intuu ka gaarayay kelmad waa laga laa. sidoo kale macalinkiisi isaga wuxuu dhigayay, wuxuu ku yiri lagama yaabo inaad mustaqbalka waxun ku fiicnaatid Einstein. maanta macalinkii magaciisa lama yaqaan, Einstein waa ninkaas caalimka ah oo macruufka ah. marka walaal waxa muhiim ah inaadan baqin. haddaad ka baqdid waxaan haddaan sameeyo waan jabaya oo jab waxa isoo gaaraya waa fashilaya, dadka igu qoslaya, meel gaari maysid. saa awgeed waxaa garanaysaa 2 qofba wax ma bartaan baa la yidhi, almustaxyi walmutakabir. qofka xishoodka badan waa lagugu qoslaya marka dadkii macalinkii wax weydiin maayo. kan isla weyn oo haddaad waxa weydiisid waxaa lagu oranaya saasna wax ma barto. marka cabsida iska dhowr. inaad u bareertid baa la rabaa, inaad guul daraysatid. baqidaas aad iska tuurtay baa waxay keenaysaa inaad geesi noqotid oo markaas aad guul aad gaartid. waxaa mararka qaarkood dhici karta inaad intaasoo mar jabtid, san hore usoo sheegnay, si aad u guulaysato. mar kasta oo aad jabtidna waxaad ka baranaysaa wax, maxaa yeelay waxaad bedelaysaa saad u shaqaynaysa. waxaynu niri Albert Einstein ba hadda ka hor wuxuu yidhi, qof haddaad aragtid wax ku celcelinaya had iyo jeer oo natiijadiina mar walba ay noqonayso isla sidii, qofkaas waa qof waalan oo kale buu yidhi. ogow walaal, arrin muhiimaa jirta. guusha wax lagama barto. qofku intuu ordo hadduu dadka ka guulaysto weligiis wax baran mayo. imtixaan hadduu galo isagoo number 1 noqdo wax kama baranayo. kan ka wax ka baranayo waa kan jaba. meeshaanuu ku jabay, meeshaanuu ku jabay, meeshaanuu ku jabay. weligeyba meel lagu jabaan jiqi la buurnaaye buu yidhi ninkii. yacni wuxuu ku tusaya inuu jab badan soo maray, laakiin hadda uu khibrad uu leeyahay. Leslie Brown ninka la oran jiro, ninkii madooba ahaa dhowr mar ka sheekeeyey, wuxuu yidhi haddii aad dhacdid oo macnaha kuftid oo jabku soo gaaro, u dhac hore u dhac, gadaal ha u dhicin, si aad isla markiiba hore aad ugu kici karaysid. bal ninkaa moralkiisa eeg. waa jabtay laakiin ha ku ekaanin jabkii oo meeshii. haddaad intaa dhulka ku dhacdid adoo ordaya dad la tartamaya, kaco orod inaad gaartaa laga yaabaaye. guul darradu, guul aan guul darro ka horeynin sideedaba guul maaha baa la yidhaahdaa. sababtoo ah wax ma aadan soo baran, waad iska guulaysatay maahane. laakiin markaad guul daraysatid oo guul daraysatid oo ood marka dambe guulaysatid waxbaad baranaysaa. dardaaran, haddaad rabtid walaal inaad waxaad rabtid ku guulaysato, waxbarasho ha noqoto, shaqo ha noqoto, tijaaro ha noqoto, iska daa caajis iyo wahsi. caajis iyo wahsi meel laguma gaaro. shaqo iyo dadaal iyo adkaysi ayaa loo baahan yahay. haddii qof dhaco ahalkaaga ah, kuwa aad dhashay, kuwa kula dhashay, kuwa aad isla nooshihiin, kuwa asxaabtaada ah, kuwa kugu hareereysan, haddii jab soo gaaro niyadda ha ka jabinin ee waxaad tiraahdaa waad guulaysan doontaa.
noqo qof adkaysi badan oo ayan dabayluhu dhinacay rabaan u ridin. waxaa lagaa rabaa jab kasta ha ku soo gaaro inaad tiraahdo take it easy, arrintan u qaado si fudud. qalad haddaad geshid waa bini aadam baa tahay, nebigu wuxuu yihi kullu bni aadam khataa. khalad haddaad geshid ha ku celcelin qaladkii, bedel. marka waxaa laga yaabaa dariiq saaxa inaad heshid. haddii aad jabtid naftaada hala dagaalin oo ha karbaashin, ee waxaad nafsadaada u sheegtaa inay guulaysan doonto marun, oo markaa shaqo tii ka fiican inaad samaysaa lagaaga baahan yahay. haddii aad guulaysatana nafsadaada abaal mari, oo nafsadaadu waa sidii ilmaha yar oo kale eh, waxay jeceshahay ku abaal mari, marka waxay ku dadaalaysaa inay shaqo kala qabato. marka walaal ogow, jabka uu qofka ku dhaca hadduusan ku harin maaha jab, laakiin markuu weli shaqadii wado xataa intaasba ha khaldee dariiqii sax ahaa buu hayaa. marka saa u ogow, waxaa lagaa rabaa jabka inaad ka faa'iidaysatid oo uga faa'iidaysatid dhinaca fiican, oo uu noqdo fekerkaagu mid wax dhisaya ee uusan noqon mid wax duminaya. intaas ayaan kusoo koobaynaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.